belas qoben marana dilaa maquseen iyay mir belas qoben marana dilaa maquseen inana muhibbiyo kalgacal milan maashi farxadii magaabineen maashi farxadii magaabineen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan joognaa magaalada Hargeysa shalay taariikhdu waxay ahayd milaadigii 3 bishii August 2021 maalin salaasa ay ahayd maalin halgameed ay ahayd maalin loo ballansanaa in la doorto gudoomiyihii iyo labadiisii ku xigeen ما هشر قدوم كي قولها وكيلة إرجاس أما ورداس أو إن بدن ما حدوق سرّيسا إلى كوا وجوه سيا أي مدل والبلد تاجين وصحافة دولة تاجين تهو إذا عدولة تاجين وتلفزيون دولة تاجين ستورك سمان لأن مالك كم تعلو وحشر قدوم ليلا وحسما اسمي لبدي يكون يشنتي تستور كأبود حسينية قدوميها كحجينا أبود حسينية وأنا حاران إن كل واقعنا شرقدون يوحنا كترين دستور كنا وعين حلال يسنو بريتنا عين كقيلنا شرع جبالة شبيه حير كوسان نقضي ما دونين إن العنان تاكو بلعبه مالين فرحدات مالين جولات مالين جبنمو أي هيد شلي سومان لانو إسكو كرسون أو إسودتا أو معارض كذي محافظ كذي كالحرين وأن قيبها كلا دوان كتيرة مسرح السياسة تشلياش كايه يعني كم مغنين أي قراء وكيل ذي سكوت تجين سومان لان هل كاو حق شيء ذو سكو كرسون بقول كيبا بقول يدو كو كرسون إن يدو قول استاء كسب حيسو وحان الدليل وها شاشديه فرح بدنا يدا عادي فرح بدنا السيدة توسكا وتبيني aanay Soomaaliland waxna qarsanin halaga yaabay dadka qaar ka yiraahdaan rag uma meesha fadhiyo rag baa fadhiyay oo golaha wakiilada sida ahaa laakiin tii haweenku kama maqneen halganka shalay ka dhacay golaha wakiilada dhexdiisa goob joogayaasha way ku jireen intooda badanina jiidaha hore ay ku jirtay iyagoo ku hubaysan gamuuna ama leebab kabxana oo ku taagan qaanso jeeroyina oo leebabkaas oo la mariyay mariidkii aan ka kacalahayn ee caabudla sida aynu ka soo xiganay ugaar yaqaankii xabad Ibrahim Dabandaran dagaalkaas shalay dhacay Saada Cali Warsame ayaa deelaydeedii ku tiri mid ka mid ah labadeedii deelay tii Muqdisho ka tirisay oo aan u maleynayo إن هاي ديوان كإيجلي أيها وحكوتي لما مارسوا ها إيدون تباشير دربي بورك كإي صورة إيدون تباشير 10 بيبحنيس نحرستي شنو يلاقي كورابي شلي 10 كاسا كده عيو بروجكتر أيها اللي قولي يو كلها وكيله دو حضورني يقدوميه يكحيان نبيسي لبديسي كحيان مدرسة على سوق علي معارضي محافظ على سوق علي سومان لان يدو سكو كرسون بيسوق شيء بوق يربا وحكر دعي إنه فرطون قدوميين إنه قدوميين يسووا مرشحة واحد بعتور دعي مجري عبد الرزاق خليل بيسووا دقن سوق عي ميكروفون كو قاطي وحعد صدين وحلقة بدلو سليمان محمود عدن قدوميها قولها قورتها أيها سوتشي دي إن ياسين فرور كفريستو قدوميها محكمة السرنا وقاتو قدومك أو شركة وقاميو ساسي كل ما تي يدو قمعان ليس هايستنا ولا قبحي هل كاسومان لان مركلا أي 10 ركو سابسن قيدي سعود كديمقراطية ده كل كتي ويادونك وكل كتي halka shalay guul baa ka dhacday mar labaad ay sunsatay Soomaaliland iyadoo wada jirta oo wada socota
halkaa shalay waxa ka dhacay niyad jab qaracan iyo quus ku dhacay in allayaale intii Soomaaliland diidka ahayd ee nabcayd gobonimada iyo madax banaanida shacbigan aan baryada ku helin madax banaanidiisa ee xabka iyo hanjiraha u soo bururiyay Soomaaliland shalay waxay ku baxsatay oo ay ku nabad gashay oo ay ku guuleysatay way aragnimadeedii hodanka ahayd ee ay u lahayd maareynta xiisadaha way aragnimo ay ka dhaxashay ururkii u halgamay madax banaanida Soomaaliland ee SNM waxyaabaha shalay lagu baxsay waxa kamid ah soo jeedintii Saleeman Maxamed Aadan macalinkaygii 64 ilaa 68 oo ahaa gudoomiyaha golaha guurtida lagu sameeyay go'aamadii ka soo baxay shirweynihii afraad 1948 magaalada Jigjiga ee SNM shirweynihii markii ugu horeysay lagu doortay Axmed Maxamed Silaay taa iyo way aragnimo badnayd oo dambe oo ku korodhay intii Soomaaliland la sameeyay 30 sanadood ahayd ayaa shalay lagu badbaaday maareynta xiisadaha aqoon ay Soomaaliland u leedahay way aragnimo u leedahay Soomaaliland may bilaabin dib u heshiisiinta markii ay dalka soo gashay markii halgamaysay xumadii iyo xanuunkii halganka ay ku soo barato deegaraad Cabdilqani September 9 ay nala joogay balgoodla anagoo halgan ku jirnaa oo ka wada hadlaynay dib u heshiisiinta sidaas ayaa shalay guushu ku timid waa guul kale oo ay Soomaaliland ku xaqiijisay doorashooyinka waa 10 ay baraysa adduunyada waa duruus kale oo ay Soomaaliland ku soo galayso saaxadda siyaasadeed ee adduunka ku muujinaysa jiritaankeeda iyo inay wax ku darsan karto geedi socodka dimuqraadiyadeed ee ama Afrika ka socda ama adduunka ka socda shalay wixii ka dhacay golaha wakiiladu inagana waa inuu 10 inoo noqdaa haddaynu nahay reer Soomaaliland waa inaynu wax ka baranaayo duruus ka baranaa axsaabteenu waa inay ka barataa xukuumadeenu waa inay ka barataa xisbiyadeenu waa inay ka bartaan waqtigu ma taagnaanayo kiyuun maaha uu socdaa adduunyadu way socotaa inagu waynu soconaa geeska Afrika uu socdaa Soomaaliland way socotaa ma aha in la iska fadhiyo dabeedna doorashada dambe la sugo oo kale la sugo maya waa in imika wax iska bedelaan xaaladda aynu ku jirno axsaabteena waa inay wax iska bedelaan oo axsaabtu noqotaa mid la jaan qaadaysa waayahan cusub ee abuurmay iyo xaaladda maanta jirta taada isbedelaysa faca tagay iyo faca soo baxaya umaynaan fadhiin markaynu doorashada galaynay inay axsaabta reeruhu u soo jeediyaan dadka murashaxiinta waxaynu qaadan karayna maahayno haddana nidhaahno nidaam dimuqraadi oo xisbiyeed ayaan ku dhaqmaynaa xisbiyadu xaaladii ku jiraan waa inay wax ka bedelaan ururada samaysmaya waa inay aragti cusub oo fayow ku samaysmaan maaha inay tii hore ee xisbiga loo adeegsanayay in mansab lagu fuulo maanta waxaan ku cabanaynaa waa madaxweynihii baa sidana waxaanu ka cabanaynaa baarlamaankii baa sidana waxaanu ka cabanaynaa golihii deegaanka sidana axsaabta nafteedii baa mararka qaarkood inagu odhanaysa iyagoo sabab u ahaa inay dadka noocaas soo saaraan waxaan u baahanay inaynu dib isugu noqono guulaha aynu suntannay inaynu ilaashano oo dhaxal gelino oo tabino oo dadka u gudbino inaguna aynu wax ku qaadano Soomaaliland waxay u baahan tahay baarlamaankani wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid ka duwan kii hore waxaynu u baahanahay axsaabtu xukuumaddu cid waliba in ay daristo waxaan aynu soo marnay oo dabeedna wax cusub ay la timaado oo dalkan iyo dadkan u cuntama iyo daadan soo kacaysa ee aan ahayn daadii hore ee aynu arkaynay doorkii baraha bulshadu ay doorashadii dhaweyd ka qaateen iyo nooca dadkii ku soo baxay
waxaan ka dardaarmayaa in la xamaasadeeyo oo la xiisadeeyo doorashooyinka waxyaabaha taban ee doorashooyinkan ka soo baxay innaga oo ay noqon doonto inaynu wada fadhiisano oo si miyir qaba ku fadhiisano oo dirisno maxaad wax taban ahaa maxaa wax togan ahaa xiisadaynta iyo xamaasadaynta balse inaga raacday guddoomiyahan ka warrama doorashadiisii aynu ka hadaaqaynay shir guddoonka ee sida qaldan dadka wax uga dhaadhicinaynay dadku way doorteen xildhibaanay doorteen xildhibaanadaasi ay ahayd inay golaha wakiilada galaan oo ay guddoomiyahoodii ku-xigeenadiisa doortaan innagii baa laynagula soo noqday kani waa sidan cabdirasaaq waa sidan khaliif waa sidan faratoon waa sidan kani waa sidan bil baynu dhaga barjaysneen oo inaynu madaxweyne dooranayno guddoomiye golaha wakiilada dooranayno shalay maynaan kala gelinayn horey inoo soo marta waxayna soo maray iyadoo la leeyahay weli meel heblaayaa la tirinaya horey inoo soo marta waxayna soo maray iyadoo la leeyahay guddoomiyihii baan weli la dooranoo kolba meel loo guurayo oo cadaalad darro iyo sinaan la-aani ka dhacday degmooyinka qaarna sidaa loo dudubinayo degmooyinka qaarna bil la sugayo waxaasoo dhammi xumadda doorashaday sii kicinayeen waxay inagu kalifayeen inaynu dagaalano caqligeenna ayaa ka weynaaday waxaan leeyahay oon hadalka ku soo ururinaya wax wanaagsan baynu samaynay guulaynu soo hoynay dhaxalgala u baahan in la koriyo oo la barbaariyo la tiiriyo oo taariikhda meel loo dhigo laga gudbo oo aynu la nimaadno fikir iyo istiraatiijiyado cusub oo aynu ku sii kobcino axsaabteenna ururada aynu furanayna ay noqdaan qaar aan la mid ahayn axsaabta maanta jirta axsaabta maanta jirtaana haddii la jaan qaadi weydo waayaha waxay ku hadhi doonaan tartanka ururada la furan doono Somaliland waa mid dad walaal ah meel wada degan dawlad wada leh shalay wixii dhacayna cidina yaanay u qaadan in cidina guuleysatay cidna laga guuleystay Somaliland oo dhan oo wada jirta ayaa guuleystay inagoo mida ayaynu galnay golaha wakiilada inagoo mida oo faraxsan ayaynu ka soo baxnay golaha wakiilada waynu hambalyeynaa saaxiibkay Cabdirasaaq Khaliif waan hambalyeynaa labadiisa ku xigeen waan hambalyeynaa isbahaysiga waan hambalyeynaa anigu xisbina kuma jiro midna uma janjeero midna kama tirsani midna u xaglin maayo laakiin tii danta Somaliland ayuun baan u taagnahay Somaliland ha jirto oo ha joogto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مرارة دلاع مقوسين بيمير بيلاس قوبين مرارة دلاع مقوسين إن أنا محبي وكالقع الميلان ماشي فرحتي مقابيني ماشي فرحتي مقابيني